السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale casharradeena imtixaana ahaa ee software-ka Filmora 9 kaasi oo aan maalmahanba soo wadnay waxaana ku jirnaa gabagabadii ama gunaanadkii software-ka. casharkeena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa haddii ay yiraahdo effects amaba waxyaabaha saameynta ku yeesho muuqaalka. haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena. isa soo noqod wanaagsan. magacayga waa Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee halkan aan ugu soo booqatay ha iloobin inaad channelka subscribe noo saartid isla markaana gambaleelka afrika sidoo kale share garee muuqaalka si uu asxaab badan u gaaro ayagana uga faa'iideystaan. mahadsanidin. casharkeena maanta sidaan ku soo sheegay hordhiciiba waxa uu ku saabsan yahay video effect. video effect waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka la joogo video editing software-ka arta isticmaal. waxaana uu saameyn ku yeeshaa muuqaalkaaga isaga oo noocyo kala duwan ka dhigayo haddii ahaan leed kalarka iyo sidoo kale qaabeshinka amaba muuqaal ahaantiisa halka oo soo muuqan doono. aan guda galno casharkeena. marka ugu horeyso waxa aan sameynaynaa waxa aan soo gelinaynaa mid ka mid ah muuqaaladan ayaa halkan keeni doonaa. kadibna waxaan dhihi doonaa size-ka 1920 by 1080 nooga dhig. okay intaan camal ayaa rabnaa right click dheh qaybta dambe dhan naga tuur. okay muuqaalkan ayaa waxaan rabnaa inaan effects aan ku sameyno. effectyadu way kala duwan yihiin noocyo badan ayay leeyihiin hadba nooca ujeedada aad u isticmaalaysid ayayna ku xirnaan doonaa. haddii ahaan leed history hore oo ah muuqaal loogu talagalay in muuqaaladii historyga ama xilli hore dhacay oo kale inaad u ekaysiiso. okay marka ugu horeysa waxaan tagaynaa qaybtan ay ku qoran tahay effects. effects markaan tagno waxa uu leeyahay dhowr xabo ama dhowr qayb oo halkan ku jirto. sidoo kale inta aadan muuqaalka aadan macnaha maxaa la jiray ku soo darin waxa aad sameyn kartaa ama aad dhihi kartaa inaad double click aad sameysid si u aragtid habka uu soo muuqanayo. haddii aragtid muuqaalkaaga in uu qaabka u soo muuqana aad aragtidna dooro muuqaalkaaga kadibna double click ku dheh. noocaas oo kale ayay noqonaysaa magaaladii. saa u jeedid hadda saan oo kale ayuu noqday. balse markaa muuqaalka sidan ugu dartid waxaa haysataa option kale oo hadda weli kumaan la darin oo hadda muuqaalkeenaan hadda play dhahno waa kaasa kumaan la darin just halkaan ayuu naga tusay. okay double click aan dhaho kan oo kale rabaa inaan soo qaato ama tusaale ahaan kan oo kale waa soo qaadayaa kadibna waxaan ku dirayaa muuqaalka ama waxaan sameyn karaa muuqaalka ayaan dul saari karaa kadibna intaan qaban karaa sidaas ayaa sameyn karaa. okay waa shine b. okay haddii aan u baado inaan waxyaabaha qaar ka bedelo waxaan dhihi doonaa double click kadibna qaybtan effectiga ayaa soo bixi doono. shine-kan xoogaa waa yareyn karaa haddaan zero ka dhigo sidiisa caadi kusoo laaban doonaa. haddaan dhexaad ka dhigana qaybahaas camal ayuu noqon doonaa. adiga nooca aad rabtid ayaa ka dhigi kartaa. qaarkood si aad usoo dejisid double click dheh kadibna wax yar ka bacdi markuu soo dego asaga ayaa ku tusi doono. okay good aanoo soo degno. okay haddii aad u baahan tahay muuqaalka sida taariikh hore history hore laga sheekeyna oo kale inta badan waxaa la isticmaalaa double click blacktaas ayaa la isticmaalaa sababtoo waxay ka hadashaa inta badan waxyaabo hore u dhacay ama history laga sheekeynayo. gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa marka filimaanta la sameynayo oo qof sheekadiisii hore iyo wixii soo maray oo ka sheekeynayo. okay naga delete garay qaybtan kore. hadda qaybtan include ayaan joognaa. filter haddaad tagtid noocyadan waaye. qaybahan dhan waa noocaas adii nooca aad rabtid oo ku qanciyay ayaa sameyn kartaa. okay sidoo kale marka waxaa jirta qaybta filterka waa overlaygaana jiro ama overlayskana jiro ayagana noocyadan ayaa ku jiro. waxaa jiro midkan. okay marka qaybtan oo utility-ga ah waa qaybaha ugu muhiimsan ayuu ku jira oo tusaale ahaan image masking ayuu ku jiro oo hadda haddaan soo qaado kan oo aan ku daro muuqaalkayga noocaas ayuu ka dhigi doonaa. okay marka muuqaalka marka waxaan rabnaa inaan sameyno qaybta crop-ka ayaan ku dari rabnaa. hadda tusaale ahaan waxaan rabnaa muuqaalkeena inaan midkan ama kuwan qayb kamid ku darno. okay qaybtan waa face up-ka qaybtan waa tiltiga kan hadda aan fiirino aan ku darno midkan aan soo jiidno ama dul saarno. markaan dul saarno okay saas ayaa u dul saarnay. muuqaalkeena waxa uu ku jiraa balar ayaa ku jiro soo ujeedid. okay double click haddaan dhaho si aan u bedelo qaybtan uu ku jiro ayaan rabaa inaan weyneeyo size-keeda tusaale ahaan. okay intaas waxaan rabaa inaysan balar noqonin aan rabaa tusaale ahaan. okay intaas balar ma asa ujeedid oo double click markaan dhaho
haddii aan soo yaray laakiin maxaa dhacay balar inuu wada noqdo. Okay good, laakiin markaa intaas dhaho maxaa rabaa intaas hadda inaysan balar noqonin. Intensity intaan iftiinka waaye. Okay good, x iyo y hadda inta u wada aan rabo hadda intaan saas aan dhaho intaas waxay noqon doontaa balar. ujeedaa ma intaan waxay noqon doontaa caadi, intaana balar ay noqon doontaa. hadba inta aan tan geeyo oo qaybtan aan wado on geeyo meesha x aan geeyo ayaa nadiif noqon doonto. qaybaha kale waxay noqon doonaan balar. size-kana waa soo jiide ama waa soo yareyne. Okay, waxaa kaloo jira y-ga kala y-da ku har y-da kor hoos waaye. Okay ayadana kor hoos waaye. Okay good, hadba intaa ka dhigaysid good. Rotationka waa gadin kartaa oo saas dhigi kartaa, intaas ka dhigi kartaa. Okay, hadda kale zero ku celi kartaa. kaas waxaa lahaa tilt shift linear lahaa. marka qaabkaasna oo hadda kana muuqaalkii qaybna waa balar qaybna waa macna maxaa la jiray waa caadi. Okay, kaas waa kaas naga tur delay naga dheh. waxaa jira asna waxa loo border ama isla kana oo si socono tilt shift cycle. kan waa cycle kana waa linear. cycle ka soo qaba asna dul saar hadaartan oo ku diri kartaa soo jiid kadibna leekaysi soo jeeda muuqaalka hareerihiisa dhan waa balar. inta yarta loo jeedaa bas si uu ziyaadiyo double click dhaayadana kadibna size-ka waa weyneyn kartaa. intaas waxaan ka dhigi karaa waxa la jiray nadiif. inta kale waxaan ka dhigi karaa balar. hareerahan hadda balar waaye. Okay iska dhahaya hadda bali aan dhaho soo jeedid intaas hadda waxa waaye waa caadi. hareerahan dhanna waa balar. Okay double click dheh waa skin kartaa. intaas bisa ka dhigi karaa baalkii salahan hoos oo soo jiidi karaa. inta bisa ka dhigi karaa. inta kale waxa ka dhigi karaa balar. Okay qofna waa ku tijaabin kartaa. qof aan soo gelin. Okay good, qof aan soo gelin oo kaadi si aan toos ugu aragno naga delete garay labadan dooro delete. Okay qof aan soo gelina si aan wajigiisa toos ugu aragno noo soo gelo qofkan kadibna inta noo soo dhig kadibna inta kan. Okay muuqaalkan waxaan rabnaa wiilka inaa wajigiisa bis nadiif ka dhigno inta si kale ka dhigno balar. effect tag waxaa tagtaa utility-ga kadibna waxaa soo qaadanaysaa tilt shift cycle. soo qaad dul saar ama ku dar adikii ku fudud samey. soo qaad dul saar. Okay good, soo jeedid hadda waxoogaa uu soo galay double click dheh kadibna size-ka oo kale horta waa weyneynay intaas ka dhigaysaa. good kadibna x-ka ayaa inta u soconaya. Okay y-gana kor iyo hoos waaya. Okay intaas wajigiisa ah bes oo feera ah ayaa waxaan rabaa in uu macnaha maxalli jiray oo nadiif noqdo. hareerahan inuu balan noqdo. Okay aan iska dhahaya kadibna hadda u jeedaa. Okay dadkaas gadaala dhan lama arkayo hadda dhinacyadaas soo jeedid asaga laakiin intaanu nadiif ka yahay intaana waxa waaye waa balan ugu jiro. muuqaalka kale oo effectiga kale aad ka muhiim waa wuxuu yahay asna borders. haddii arki jirtay borderska waa kana asna double click dhaay qaabkan oo kale ayuu soo muuqanaya. soo jiid kadibna asna dul saar. Okay kadibna halkaas geey soo jeedid border ayaan gelinay oo ah white. haddaba colorka ayaan ka bedeli karaa borderka. double click dheh kadibna qaybtan waa starting qaybtan waa ending. labada color waa isku dari karaa. haddana rabana hal color ka dhigi karaa. ani waxaan rabaa inaan laba color isku daro. qaybtan starting ka ah kan iga sii qaybtan ending ahna waxa iga siisaa blue iga sii. saasaan isugu daray. balarka aan ka dhigi karaa inta yar balar ka yar dhigi karaa. size-ka waa weyneyn karaa haddaan rabo ilaa intaan rabaan geyn karaa. Okay good, direction-ka jihada waa bedeli karaa. waxoogaa waa yara khafiifa kasi dhigo opacity-gaan dhimay aad ujeedin ma. Okay opacity waxaa yar dhimay. intaas baa samayn karaa. haddaan rabana opacity si caadi ah ka dhigaa 100% balarkan waa ka bixinaa saas oo noqday. Okay kaasna waa kaas oo inta ugu muhiimsan intaas waaye maxaa la jiray effectiyada qaar kale badan oo lagu soo darsaday way jiraan. insha Allah cashir kale ka hadli doona. waxaan rajeynayaa in badan aad ka faa'iideen cashirkan oo ah mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan casharadii aan maalmahan ku soo jirnay software-ka Filmora. tan inta kulmi doono casharadii xiga waxaa idinku dhaafayaa nabadgelyo.